waad helaysaa dunidan waxaad ku noolaato xitaa haddii aad faqiir tahay balse faqiirtinimada dhabta ah waxay tahay marka alle hortiisa aad wax la'aan istaagto qalad inaad gasho ama aad samayso waa qayb nolosha ka mid ah kaama dhigayso inaad guuldarraysatay laakiin qofka qaladkiisa wax ka barta kuna dadaala inuu hagaajiyo ama saxo waa guulaystay nafsadeenna waynu jecelnahay weliba anagoo qaldaad badan samaynayna marka maxaan ugu nacnaa dadka kale hal qalad ama laba qalad oo ay inaga galeen inta badan hubi nafsadaada oo iska sax qaldaadkaaga jooji eedeymaha dadka kale aad u jeedinayso nafsadaada mas'uul ka noqo taas waa waddada keliya aad ku hormari karto wax kasta oo hadda aad wajahayso alle keliya ayaa fahmi kara ha isku dhibin inaad dhibtaada ama dhibaatadaada cid kale la wadaagto ama aad u sharaxdo dhibaatada ama dhibta aan mar waliba la kulanno waxay ka mid tahay tijaabada nolosha waxay naga dhigaysaa dad fiican oo adkaysi badan waxayna noo furaysaa albaabada guusha guuldarrada waxay horudhac u tahay guusha waayo qof aan guuldarraysan ma guulaysto